بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو dhawaada madbaxa Muna maanta waxaan la qaybsanayaa qorofal iyo saliid aan ka sameyn doono qorofalku timaha ayuu bixiyaa wuuna adkeeyaa halkan waxaan ku shubayaa madiibadan yar hal malgacad oo weyn oo qorofal ah maad ogtahay qorofalka hadaad ilig ku xanuunayo iliga intaad ku qabatid baad ku hayn kartaa ku seexan kartaa dhowr minute hadaad ku haysid insha Allah uu ka baaya xanuunka iligu qorofalku timaha inuu daadiyo uu fiican yahay oo kaama daadinayo marka insha Allah isku daya hal malgacad oo weyn ayaan tibtaydii mooyahaygii ku tumayaa waqti bay iska yara qaadanaysaa intaan ku tumayo laakiin wad ogtiin aan jeclahay marka is satisfying waan ka helaa qorofalkan wuxuu u fiican yahay scalp-ka timaha meesha ka baxaan oo maskaxda yani scalp Soomaaliga ma garanay scalp-ka وماشي تمو كسو بحان halkaas la marinayaa saliida ma ah timaha dushooda iyo timaha halkooda hore iyo tibtooda hore inta hore ma aha waa madaxa weeye hal malgacad weyn ayaan si fiican u ridqay mashiinkan oo isticmaali kartiin طبعا waxaan ku ridayaa glasskan waxyaabo plastic oo sawa ma fiicna marka hadaba hal glass haysatiin oo fur leh ku rida waxaan ku shubayaa markaas saliida doontid ayaad adigu ku shuban kartaa 3 malgacadood oo waaweyn oo saliida ayaad ku shubaysaa aan maanta waxaan ku shubayaa coconut oil waatan daboolkan ka furayo aad arkaysiin oo taas kuleelaha markay tahay dabcan way dhalaashaa marka kalena way adag tahay marka coconut oil baan ku shubayaa laakiin waxaad ku shubi kartaa castor oil almond oil jojoba oil argan oil almond oil زيتون حتى olive oil سليد حتى black seed oil سليد laga sameeyay xabasuud oo ku sameyn kartaa tii asla la timaha ugu fiican tahay aad la qabsatay anu zayt coconut oil baan ku shubayaa 3 malgacadood oo waaweyn iyo hal malgacad oo qorofal aan ridqay ah kaas marka bahal dabool ayaa loo baahan yahay oo ruxruxaysaa 2 week ayaad iska deynaysaa siday infuse yani ay isku dhaxgalaan saliida iyo qorofalku marka waxaad ka ilaalinaysaa cadceed ama qoraxda inaad ay ku dhacdo maalintiina hal mar baa ruxruxaysaa waa kan 2 week kadib oo taas waad aragtiin kalarkii ayaa isbedelay saliida kalarkeedii marka waan shaandeynayaa kan ku shaadheynay waa aragtiin bahalkan madiibad bahal yar baan ku shubanayaa iyaduna waa glass waxyaabaha birta glasska aan waan ku talinayaa inaad isticmaashiin taas ayaan ku shubayaa kadib way ka miirmaysaa iyadoo dhan saliid iyo saafiya oo qorofilkii anina aad bay ila udgoon tahay laakiin dadka qaar baa udgoon ahayn carruurta waxay yiraahdaan hooyo way soo oraysaa laakiin anina udgoon bay la tahay marka tabcan hadaad doonayso inaad ku baxdid habeenkii baa intaad marsatid waad subaxii iska meeyri kartaa iyo dhan baan ka soo ururinayaa wataas saliid waa diyaar waa wax yar oo fudud oo timahana u fiican oo la bixinayo insha Allah laakiin dabcan wax kaste waa in la daa'imo oo mar kasta la sameeyo consistency baa loo baahan yahay ma aha in mar la isku dayo hadan la timihii way iga daateen iyo ma baxayaan oo qaadaysaa wad marinaysaa wiigi 2 jeer timahaaga marinaysaa waliba gunta ayaa muhiim inaad marisid ma aha dusha sare iyo baararka iyo waxaas ma aha وتاس اسكو داي ان شاء الله صدحداس aan ugu sameeyay iyo mid spray ah wad ma santihiin don't forget to like share and subscribe to my channel assalamu alaikum